haddii diyaaradda ra-iisul wasaare xamse cabdi barre wadda ay soo gasho hawada magaalada laascaanood gebigeedba waa gubanaysaa dhulka ayaan dhigaynaa marka la gudboon Soomaaliland hadduu ra-iisul wasaaruhu laascaanood maro waxa la gudboon diyaaraddu inay samada ku holasho andaad zid waxnu ku leenahay wanaag iyo sharaf iyo wax wada qabsi iyo walaaltinimo meeshaada ku dhaqo ku hagaajiso dalkaaga iyo bulshadaada iyo ummadaadana godob iyo dib ha u soo jeedin baan u leenahay waa arrin cad weeye oo reer Soomaaliland ay meel uga soo wada jeedaan maamulka sidaa u hanjabaya muddo 2 sano ku dhow jeneraaladoodii saraakiishoodii magaalada laascaanood ayay maxbuus ku yihiin waana soo furan laayihiin halka diyaaraddu ay marayso iyo halka ay joogaan ciidamada Soomaaliland ma isku dhow yihiin maba xuma in diyaaraddaasi dhulka la soo dhigeen hanjabaadu markay intaa gaadho dadka Soomaaliyeed su'aalo badan baa dul hoganaya barnaamijka ayaana kuugu soo gudbi doonaa shacabka magaalada Hargeysa ayay warbaahintu mikrofoonka la dhex martay kadib markii la shaaciyay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya inuu ka degi doono magaalada caasimadda u ah SSC Qaatumo laascaanood ninka xamar baa ka imanaya laascaanood baan imanayaa ninkii Cabdirashiid ayala meesha inta la yimaado laga noqdo waa Bermuda dawladda Soomaaliya ee daciifka kiiloomitir foran soo dhaafay wax leeyahay ra'iisul wasaare laascaanood ma hooyada abaale hadda adigoo hurdin waan kama asanayn ayaad riyootay baan ku leeyahay riyada ka toos barnaamijka ayaad uga bogan doontaan qodobada iyo qodobo kale oo quseeya safarka ra'iisul wasaaraha iyo horumarka maamulka SSC Qaatumo ayaan barnaamijka kuugu soo gudbi doonaa waxaan ahay Cabdullaahi Balwaan waxaan soo gudbiyaa barnaamijyadan ku iftiimiyo xogaha hoose aniga shaqadayda hay ku heefin marka labaad ku soo dhawow Facebook-gayga page-ka Cabdullaahi Balwaan oo aad mar walba kala socon karto macluumaadada ugu dambeeya marxaladaha taagan iyo xaaladda midnimada iyo waliba barnaamijyada karbaashka ah page-kan follow ha ku saarnaado si aynan ku seegin barnaamijyada aan soo gudbiyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya mudane xamse cabdi barre ayaa shalay shaaca ka qaaday inuu booqan doono magaalada caasimadda u ah SSC Qaatumo ee laascaanood haddaba aad ayay uga gilgisheen Somaliland booqashada ra'iisul wasaaraha Soomaaliya uu ku tagayo magaalada laascaanood waxaan arkayay Faysal Cali Waraabe oo kamid ah siyaasiyiinta ugu cadcad beesha Isaaq oo ku sheegay safarka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo laascaanood ku imaan doono taa beddelkeeda in ay dawladdiisu ay heli doonto jawaab taasoo ku sheegay jawaabtaas inay tahay bisha May in Muqdisho ay al-shabaab la wareegayaan waxa uu maanta banaanka la yimid Faysal Cali Waraabe in maamulka Somaliland iyo shabaab uu xiriir ka dhaxeeyo marba hadduu ku hanjabay hadduu ra'iisul wasaaruhu laascaanood tago al-shabaab baa qabsanaya magaalada Muqdisho taas macnaheedu way iska caddahay al-shabaab baa noo heelinaya waaye marka intii aan shala ogeyn maanta maamulka iyo argagixisada farqiga u dhaxeeya indheeynaad ku aragtaan xisaabta ku dara boqor buur madow oo kamid ah waxgaradka ka soo jeeda dhulkaas ayaa horay wuxuu ka sheegay magaalada Muqdisho in ay beesha Isaaq laba maamul u dhisan yahay maamul la yiraahdo Somaliland iyo maamul argagixiso ah oo shabaaba boqor buur madow ayaa hore u sheegay Faysal Cali Waraabana hadda wuxuu ku hanjabayaa hadduu ra'iisul wasaaruhu tago magaalada laascaanood beddelkeeda magaalada Muqdisho argagixisada ayaa la wareegi doonta marka warka waa iska cad yahay waqti badan oo sidaas ummadda Soomaaliyeed hadda uma baahna in loo faahfaahiyo waayahay xildhibaan ka tirsan maamulka Somaliland ayaa maanta warbaahinta la hadlay meeshan ku yaabay ayaan fadhiyaa xildhibaanku wuxuu ku hanjabay in diyaaradda sida ra'iisul wasaaraha Soomaaliya xamse cabdi barre ay guba doonto ama ay dhulka soo dhigi doonaan wuxuu ku hanjabay ku celceliyay inay ka go'an tahay Somaliland inay dagaalamaan wuxuuna sheegay in dagaalka Somaliland hadda ay wajahayso oo la mid yahay kii 1988 la wada dagaalami doono qof walba iyo qoray maamulka Somaliland ay ka go'an tahay in ay marnaba laascaanood ra'iisul wasaaruhu uunan imaan taasoo macnaheedu yahay heerka uu ka gaarsiisan yahay wafdigaasi inuu laascaanood uu tago macnaheedu marka iyo sababtay u kululaanayaan oo ay u diidan yihiin ra'iisul wasaaraha laascaanood hadduu xamse tago Somaliland maalintaasi u dhamaatay de waa la biir raacinaya gooni isku taag maalintaasi u dhamaatay cid dambe oo gooni isku taag sheegan karto ma jiro haddii wafdiga ra'iisul wasaaraha uu laascaanood tago beel caalam oo lagu tugsan doono dhul harti ma jiri doono waxa laga gubanayo oo laga karkarayo oo loo qayla dhaaminayo oo la aamusi la yahay oo loo hanjabayo
maalinta wafuudda dowladdu ay tagaan magaalada laascaanood gabalkii goorisku taagga ayaa dhacay waana hormuudka midnimada ummadda Soomaaliyeed iyo waliba guusha maamulka SSC qaatumo waxaa nagu waajiba marka anagu inaan midnimada taageerno ka soo horjeesano goorisku taag cid kastoo taabacsan goorisku taaggana aynu dhammaanteen ka hor imaano haddaba xildhibaankan wuxuu ka mid yahay baarlamaanka maamulka Hargeysa ama Somaliland hanjabaad cad ayuu saaka warbaahinta barsiinayay waa qoslay markaan daawaday hanjabaadda xildhibaanka oo ay ka mid yihiin maxamed kala gudboon Somaliland hadduu ra'iisul wasaaruhu la saanad maro waxa la gudboon diyaaraddu inay samada ku hesho andaad zid waxnu ku leenahay wanaag iyo sharaf iyo wax wada qabsi iyo walaaltinimo meeshaada ku dhaqo ku hagaajiso dalkaaga iyo bulshadaada iyo ummadaadana godob iyo dib ha u soo jeedin maanu leenahay waa arrin cad weeyo reer Somaliland ay meel uga soo wada jeedaan meel la wada taagin maanta reer Somalilandna waa mid there's no space laga soo meel maanta laga soo galayo oo banaan ma leh reer Somaliland waa isku mid waa isku goob waa isku qarannimo waa isku ajenda waa isku ujeedo waa isku himilo waa isku hadaf meel bay wada socdaan dalkooda iyo dadkooda iyo naftooda iyo diintoodana waa difaacanayaan wad baadsan way maxamed kala gudboon Somaliland hadduu ra'iisul wasaaruhu la saanad maro waxa la gudboon diyaaraddu inay samada ku hesho andaad zid waana dhacaysa waana xaqiiqa Somaliland xilban maxay ka qaban kartaa ciidan baynu leenahay dad isku tashaday baynu nahay 1986 ma yalla weerar maayo wixii soo galaya isiga gubanaya soo degdegaya waa dhantay diyaaradda wafdiga wada haloo hanjabo ma xuma laakiin ciidanka Somaliland imisa kilomitir u jiraan magaalada Laascaanood meel diyaarad laga carqaladay karo tiigu ma joogaan diyaarad meel laga carqaladeyn karo oo loogu hanjabi karo diyaaraddaasi in la soo ridayo horta ciidanka Somaliland ma joogaan jawaabtu waa maya masaafada ay u jiraan magaalada Laascaanood iyo hanjabaaddaas horta isma waafaqayso reerkan waxaan kala yaabay aqligoodu wuxuu soo marayaa 20 sano ka hor dad abdayda maba ahanba wacyiga hadda jira maba la socdaan siyaasigooda iyo shacabkoodana waa isku aqli ma garanayo waxaan ku micnayo wallahi sababtoo ah kooda siyaasiga markuu hadlo aqligiisu sidoo u foorro ayuu ka shacabkan u foornaa meeshan ku yaabaan fadhiya maba xumaba haloo hanjabo wafuudda dawladda dhexe oo la yiraahdo Laascaanood ma iman kartaan waxa su'aala reerka hanjabaya muddo 2 sano ku dhow maxaabistoodii ayaa Laascaanood ku xiran awoodda ra'iisul wasaaraha ay ugu hanjabayaan maxaabista maxay ugu soo furo waayeen reer dhan oo generaaladoodu ay xiran yihiin 400 lafdhabartii ciidanka Somaliland ay ka xiran yihiin ayaa xamse u hanjabay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un war ma runta la isku sheego war labeentii isaaq ayaa xabsiga Laascaanood ku jira 2 sano ku dhowdahay 2 sano ku dhowdahay 25kii Agosto maantana 2023 maantana waa bishii Abriil 4 bilood kadib 2 sano 2 sanad maxaabistiina soo furay leedahay waxaad u hanjabaysaan ra'iisul wasaaraha iyo fuudiisa shacabka ka daran waxay ku leeyihiin bal indhahaaga ku daawo ninka xamar baa ka imanaya Laascaanood baan imanayaa dhiigii Cabdirashiid ayala meesha inta la yimaado lagama noqdo waa Bermuda dawladda Soomaaliya ee daciifka kilomitir foran soo dhaafay wax leeyahay ra'iisul wasaare Laascaanood ma hooyada abaale hadda adigoon hurdin waan kama asanayn ayaad riyootay baan ku leeyahay riyada ka toos ama qayliya ama iska daaye xamse cabdi barre Laascaanood waa tagaya awoodaad ku celisiina ma haysaan shacabka Soomaaliyeed ayaana taageersan wafuuddaasi tagaysa magaalada Laascaanood si lagu celiyo male ama Faysal Cali Waraabe ha ku hanjabo al-shabaab aan noo aargudaya waska cad yahay warka Faysal Cali Waraabe waxa weeye al-shabaab ayaa noo aargudaya waay warka dib loogu noqon maayo marka marxaladdu halkaas ay taagan tahay wixii ku soo kordha qaylanaanta Burca iyo Hargeysa iyo xaalka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre waxaan kugu soo gudbin doonaa barnaamijyada soo socda marba hadduu qofku taageero SSC qaatumo anigu waa garab taaganahay ra'iisul wasaare Xamse intaad adigu garab taagan tahay SSC qaatumo codkayga iyo idaacadayduba adigay ku garab taagayeen wixii ku soo kordha isha ku hay Facebook page-ka Cabdullaahi Balwaan nabadgelyo